xafladan quruxda badan ee arkaysa waa tii lagu soo dhaweynayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil waa Saylici dad aad u tiro badan oo geesaha magaalada Seattle Washington ka yimid ayaa isu soo qaban qaabiyay maalinimadii Jimcihii oo maanta ka soo degay gegida diyaaradaha SeaTac International Airport Seattle haddaba dadka halkan fadhiya waxa u diyaar garoobay tusayaan iyagoo waji furnaanta iyo niyad samida wanaaga badan ee u hayaan qofkii jaga Soomaaliland haya oo ugu sarreysay ay noqotay inuu noqday u yimaaday maanta madaxweyne ku-xigeenka Mr. Saylici dadkuna ay leeyihiin soo dhawow warka magaaladuna oo aad soo dhex maray haddaba wajiyada quruxda badan ee halkan fadhido ayaa waxay nasiib u yeesheen dadka iyagu noqda inay xafladan ka soo qayb galaan caawa isku warami doona insha Allah hadii ka dhigo boqolka aad baad maasantii السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا وحنا بلعبنا حفلة تيلي لكن مثلا في جمهورية سومالان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدي الملك الأورجانيو وحنا نحصل على سيارة ولنا سدي بقشرنا سباقتين حتى وحنا بلعبنا سريع على هنشة آية القرآن الكريم فأقول أخي الشيخ يوسف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فرسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم ولك يا شيخ يوسف أيضا القرآن كنا أقرأ له نقام فعو وأنا معتسيه هذا واحد كسر دوينيا ميكروفونك قدوميها قام قابضة سدوينتها وفتي وهكامريو مدحون كحية جمهورية سومالان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي waxaan rabaa inaan u yeero ninka la yiraahdo Faisal Hamid Jibril oo runtii la aantii arintan inoo soo gasheen Faisal u soo dhawo marka hore halkan waxaan mahad ballaaran uga dirayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici inaan ku soo dhaweeyo magaalada Seattle iyo gobolka Washington aniga oo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada ee tijaariyadda Soomaaliland ee Seattle waxaan leenahay madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhawow Seattle waxa kale oo aan rabaa halkan inaan ka sheego inay tahay mas'uulkii ugu sarreeyay ee abidda soo booqday jaaliyadda Soomaaliland ee Seattle taana aad iyada ugu mahadsan tahay waxa kale halkan mahad gaar ah aan u jeedinayaa dadkii ila qabanqaabiyay xafladda tan oo magacooga halkan aan ku soo koobi karin marka speaker-kayga ugu horeeyay maanta waxa weeye ninka la yiraahdo Khadar Ibrahim Warsame ugu horeeyay madaxweyne ku-xigeenku Welcome to Seattle, Washington. aad baad maadsantay meesha fogaad nooga timid sharaf bay noo tahay ummadii markii ay meel isku timaado aaraa iyo waxay isweydaarsan wixii afkaar ah ummadda reer Soomaaliland amba guud ahaanba dalkan shacbigiisu waxa ay doorteen oo ay wadadiisa qaadeen in ay wixii ay wadaagaan waxay ku midaysan yihiin ila ka wada shaqeeyaan wixii lagu kala duwan yahay afkaara sida ummadaha adduunka ay horumareen kuwan aynu la joognay imka qarbiga
mar walba waxaad arkaysaa iyagoo ka wada doodaya waxa ay ka midaysan yihiin ee fikirka ah waxaa ka mid ah matalan sida waxbarashada caafimaadka daryeelka dadka waaweyn daryeelka bulshada difaaca qaranka marka ummadi wixii ay ka midaysan yihiin markii ay ka doodaan waa fikir caafimaad qaba horumarkaas asaa lagu gaadhaa ummadana markii ay wixii ay ku kala duwan yihiin ama fikra ama dee kala raya wuxuu noqonayaa wax aada u yar oo waxa lagu midaysan yahay ayaa ka badan taasana horumarka lagu gaadhaa haddaba fikradda khadar ibraahim uu sheegay runtii waa mid aada u fiican loona baahan yahay bulshada Soomaaliland inay meel kastoo ay joogto ku dhaqanto horena u sii qaado horena u sii dhigto ereyada noocaas ee xoog leh ee dirimaad kale ee doonaysa inay bulshadeeda hore ugu sii dhigto balse habeennimadii waxa isagoo halkaa ka muujiyay runtii wacdaro aada u dheer oo isagoo aan odhan karayo wuxuu ahaa ninkii stageka qaatay waa Khadar Macalin Qaasin waxaan odhan karayaa magaalada Seattle inuu caan ka yahay ama North America meelo badan waa nin mutacalina waa nin hal abuur leh oo bulshada aad moodo ereyada uu ku hadlaa ay always yihiin qaar macno u sameynaya kana hadlaya waqtiga lagu jiro iyo macnaha gabayada ama tixaaha uu tiriyana ayin qaar tilmaan dheer leh haddaba habeennimadii caawa ahayd ee lagu soo dhaweynayay xafladda quruxda badan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Master Saylici waxa uu soo talagalay suugaan yar oo gaaban oo uu yiri magaceeda waxa la yiraahdaa maansada soo gobaad bal waa kan Khadar oo ka horeysiya hadal runtii aad u xiiso badan intaanu maansadiisa u gelin bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaliin وعلى آله وصحبه أجمعين يا سلام أنا أقول هذا يوم مقع شاليد السومالان عاوة سودوين تأوفر ذا مرتدين شرفت له وحان مركو ورئيسا مدن مدحوينها كحيجين كجمهورية السومالان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وزير الدولة وحبرشدة مدن أحمد iyo dhammaan waftiga ay hogaaminayaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa safarka dheer ay inoo soo galeen oo runtii ay maal iyo waqtiba u soo hureen si ay u soo ogaadaan duruufaha dadkooda ay hogaanka u hayaan doortay duruufaha ku haysta ama ay ku qabaan daafaha adduunyada oo ay ilaa iyo caawa Seattle ilaa dalal fara badan ay ku soo gala bixiyaan waxaan leeyahay taasoo muujinaysa ahmiyadda ilaa xadka ay danaynayaan ummadda dooratay ay hogaanka u hayaan waxaan leeyahay thank you waa mahadsantiin Ibrahim baan ugu daray waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Somaliland ee caawa sida sharafta leh muggali waxaan u sheegayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga hogaaminayo waxaanu caado u leenahay inaanu jaaliyad ahaan aanaanu kala hadhin oo muxaafid iyo mucaarid kala lahayn ee aanu soo wada dhaweyno madax badan ayaa halkan noogu timi oo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud uu ka mid ahaa oo ka mid ahaa Faysal Ali Waraabe Cabdiraxmaan Cirra noo yimi Jamaal Ali Xuseen baa noo yimi waxa noogu dambeeyay Muuse Biixi oo aanu sidaas oo kale annagoo isku duuban oo gacmaha haysasana oo aan mucaarid iyo muxaafid kale aanu soo dhaweynay waxaan leeyahay thank us innaga mahadana le reer Somaliland waxaan mahad u celinayaa walaalaheena Soomaaliyeed ayaguna sharafta leh nagala soo qayb galay maanta soo dhaweynta madaxweynaheena Jamhuuriyadda Soomaaliland ayagana waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantiin marka ay madaxdiinu noo timaado halkan inoogu timaadana sidaas oo kale ayaanu idin la soo dhaweynana insha Allah taala idinla waa mahadsantiin waxaan mahad u naqayaa qabanqaabeyaashii inoo suurtageliyay xafladan miidaankan rag iyo dumar balaha ma sha Allah ilaahay jazaa'id ka siiyo waajibaad ina wada saaran baa gudateen oo ay naga furateen waxaan leenahay waa mahadsantiin idinkuna aad waxaan ugu mahadnaqayaa bahda wareeyaasha warbaahiyaasha oo caawa nin waliba halka uu u ciil qabo fariintooda ayagoo isticmaalaya qalabkii casriga ahaa laga yaabo in Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa la inaga daawanayo
toos inagoo madaxweyne ku-xigeenkeennii soo dhaweynayna waxaan leeyahay idinkuna waa mahadsantiin fursadda qaaligaani oo ka faa'iideysanaya waxaan qabaa had iyo jeer haddaan ka turjumo bahda suugaanleyda marka aanu tilmaamayno ummadda ama waxqabadkeeda ama dhaliilaheeda waxaan qabaa dawlad inoo dhalatay oo aynu doorannay oo aan wax qabanin ma jirto ninka yiraahdo dawladdaasi maanta Cabdiraxmaan Saylici iyo Axmed Silaani hogaaminayaan waxba may qaban anu waxaan qabaa inuu been sheegay horumar muuqda ayaa dalka ka socda oo la taaban karo ninka yiraahda aynu sidii tiisiyaad barre sacabka turn waxba waa perfect wax waliba waxba ma jiraan dhaliilo ma jiraan kaana waxaan qabaa inuu isna been sheegay oo dawlad kasta oo timaada kulli gudulolooyin iyo meelay leedahay dalkana waynu wada ilaashanayna annagu markaanu bahda suugaanta nahay waxaanu always tilmaanaa meelaha ay gudulolooyinku ku jiraan oo aanu war halka tuuba halkaas daloosha war halka gufeeya war ayaanu gabayada ku sheegnaa markaanu hadlaynana had iyo jeer burku wuxuu ku dhacaa madaxda ama madaxweynaha ta madaxweyne ku-xigeenka haatee ayuu burku ku dhacaa waxaan qabaa shakhsiyan in ay iyagu ka sareeyaan qabiil iyo meel yaro hoose iyo waxa jiray aan idinka yar qasliye inkastoo waqtigu inagu yaryahay nin bacaluu la oran jiray Allah yarxamo nin aad u karti badan oo fariida buu ahaa oo yani soo jeeda inta uu leeyahay waxa ahayd in aad u gaaban buu ahaa subhanallah dhulku ku dhagan waxa uu u helay nasiib inuu gabadhii ugu quruxda badnayd beesha uu guursado kartidiisu gaarsiisay dadana inantii baa la siiyay hablu hada jiraalo waxbay xanaakadiyaan way xanaakad badan yihiin maalma ka yiraahdeen naahay dheblaayo ninkaagu aad buu gaabiyay subhanallah balaynu qiyaasno aws dhudhuna bay soo sameeyeen dhudhu dadana waxay ku tiiriyeen halkii uu ka soo galayay kadinkii uu ka soo galayay gurigiisa ay ku tiiriyeen hadii jiraale markay raggu geela soo xareeyaan dumarkuna habeenkii waxaan maleynayaa in badan oo aragtay miyid kuma jirtee hablu xiriyahay gali jireeno idaha la lisi jireeyo halkaas xiriyahay gudaha ku jireen raguna markay soo galaan guriga xagaas geeli ka soo gal jireen ninaadu foojigan buu hayo hadii jiraale weegi jir bar hadii qulquladi socoto hareeruhu yar eegi jiro baalkii oo teersan waxaana caada cawska markay hablu sameeyaan ilaa ay dhameeyaan uu jiifi jiray waa baalkii baataag waxba qulqulad ba socota dadna uu isira ag taagayo baalkii uu nasiib wanaag ka dheeraaday in yar waxa uu caado walaha marka habla la hadli kari maayee sodohay islaantii oo ku jirta xerada hadi hooyo ma ka muray maxay waxa aragtay nin cawskii agda alla leeydi si qaadi habar baali ka qabsto hablihii ayay magan gudulolooyinka aanu madaxda maageen waa madaxdayadii cidin laga xigtay adeer hoos u celina nimanka meelaha ka carooga ka qaateeyada oo heer bal buu maagay waxaan leenahay ma aha way ka weyn sharafta ka dilina soor gobeed ayaa la yiraahdaa maansada caawaan halkan ka tirinayo saraakiishan dalkeenne awadeen saranseerkiyo safarkan aadka u dheer sahayday u huraan iyo waqtigoodaba siiyay soo siyaarta dadkiinan ku saloolan qurbaa ee ay saamaysay duruuftu mahadba u sugnaatay salaana way mudan yihiin sacabka igu hibeeya sacabka igu hibeeya shukranna waa iga sooriyo mudane Sayliciyow miidaankeenan siraadan Somaliland umadeedii ila joogtay Seattle sida ay u dhan yihiin annaga oo saf u taagan muxaafid saaciidatiiniyo mucaarid seefta u haystaba saddexdii xisbi caawa saaxadda ayay ku dhan yihiin iyaga oo sida loolka soohan oo isku duuban bay soo dhaweyn aad u ballaadhan idinla sii sugayeeno waa kuwan soogan hortiine abshiru ya su'ama assalaamu alaykum soo dhawaada walaal sadarkayga labaadna bakhayl baa ka sagsaaga
bakhayl baa ka segsaaga sad ninkiile u yaale madaxweyne siilaanyo sayliciyow laftigaagu maamulkan aad u sarrayso siyaasaddiinna ku aadan somalilan dibdhiskeeda si fiican baa u wadaano subixii alla keenaba horumar baa ku siyaado oo sumcad baa ku hesheeno taariikhda idin suntayso oo credit baan idin siiyey haddaanse sii yara raacsho macashuu sahal diiday inaan rag sayliciyow 3 buu xaq u leeyahay inaan rag sayliciyow 3 buu xaq u leeyahay saatirkeenna tilmaamayo inaanu ruuxna saraynin suuradaha lagu sheegay inuu sawdku xor haado uu siduu doono u sheego oo afka xaydh laga saarin inay saantu xor haato inay saantu xor haato saxaraanu ku duulino cidina aanay saqiirsan ragga sool iyo saylacna saatir ha u naxariistee siduu gaariya sheegay saluug bay tirsadeene soorgobeed kula xaala oo ha sugnaado xaqoodu soorgobeed kula xaala oo ha sugnaado xaqooduyo sad bursiimo ka dhowro siyaasadeenna qaboojo wabarka seefta la boodiyo khaliifba soo lad qabeeyo wassalaamu calaykum saaxiibkaya ku soo dhawo maxamed horta sideedaba hadalka haddii lagaaga horeeyo oo weliba nin aftaham oo khadar oo kale kaaga horeeyo dee waxuu kuu reebaaba yar mudane madaxweyne ku-xigeen waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkan Seattle dadweynahan goobta joogay waxay kugu soo dhaweynayaan gacmo furan waxayna ku faraxsan yihiin imaatinkani adigoo madaxweyne ku-xigeen inaad noo timaado sidii hore ay u sheegeen waxay ku leeyihiin mahadsanid waxayna diyaar u yihiin inay ku dhageystaan si aad warbixin dalkii gudihiisa uga siiso waxaan se ku sheegayaa sidii hore loo cadeeyay bulshada rayidka ee halkan joogtay inay ka tirsan yihiin oo ay ku abtirsadaan dhammaan xisbiyada qaranka waxayna goosteen in adigoo astaantii qaranka sita ay wadajir kuugu soo dhaweeyaan magaca aad huwan tahay ee madaxweyne ku-xigeenka waxaan ku soo dhaweynayaa cabdiraxiim siduu sheegay maxamuude horta hadalkii waa dhameeyay runtii waxa la yidhi aniga haray hadal looma yidhaaho maxay ahayd tooy ninbaa wuxuu yidhi qulwallihii wuxuu yidhi qur-aan buu yidhi qulhuwalla isku fuuqsaday yaa horta khudbadii hadday jirto khadar macallin ayaa horta khudbadii isku wada fuuqsaday yaa weliba khaasatanna waxaan salaamayaa martidan sharafta leh ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici soo dhawow madaxweyne ku-xigeen aad baan ku soo dhaweyn haddana reersiga dhalinyartana kolley waxaan hadda u yeerayaa nin la yidhaha cambuulo oo nin dhalinyaro ah madaxweyne ku-xigeenka laakiin anigu 2 hadal baan odhanayaa hadal waa hadal ku saabsan ictiraafka Somaliland hadalna waa hadal ku saabsan biyaha oo dhibaatooyinka maanta ka jira Somaliland qaybo kamid ah Somaliland waxa kamid ah biyuhu waa nolosha oo biyuhu waa daruuri in dadkaasi ay wasiir helaan ama ay xil helaan ama ay wax kale helaan waxa kaga muhiimsan biyuhu waa nolosha bini'aadmiga marka in biyo la helaa waa important waxaan madaxweyne ku-xigeenka kula dardaarmayaa in arintii biyaha uu madaxweyne ku-xigeenku dabagalo oo arrinkaasi aanu noqon arrin laga seexdo arrinka biyuhu taasi waa ta ictiraafkay noqotay ta ictiraafka bergii dhaweed ee ictiraafka bergii dhowtay ee booluhu ka dhacay Afrika ayaa waxaan keenay fikradeedaas waxay haddaynu 2 markabo ariga u rari lahayn baashi Liberia iyo Guinea inay ictiraafkeena siin lahaayeen marka madaxweyne ku-xigeenkana waxaan kula dardaarmayaa bal ictiraafkan aynu ka raadino ninka saanta cad inaynu afrikaankana ka raadino oo aynu meelo badan oo inaan gelin oo godad kale oo inaan gelin ictiraafkana loo maro taana madaxweyne ku-xigeenka kula dardaarmayaa toogu weyn waa taabiyaha waxaad moodaa haddaba waxa meesha ka hadlay inay rag u badan yihiin laakiin iyadu waxa isku qaadatay qaybtii dumarka oo halkaa runtii hadalla ka duwan hadaladii la sheegayay oo dhan ka soo jeedisay Saynab oo arkaysa sida ugu taantaasatay ama dareenka shakhsi ahaan ee ay qabto iyadoo bulshada reer Seattle Washington fariin faraysa
واتن waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo diyuufta kale la socota waxaan kaloo mahad u celinay dadka qurxaa badan ee maanta halkan ka soo qayb galay waxaan doonayaa anigu inaan halka hadlo insha Allah wax yar oo badnayn in badan waxaan daawanaa miidiyaha waxba naguma seegana wadankii laakiin waxaan kulli wax naga dadan baa jiro noo sheegi doonto waxaan sheegay caawina halkan ka weydiiyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Saylici dadku way cabanayaan East and West wadankeena waa laga qaylinaya waxa loo qaylinayaan kulli waa tabashada jirta qofna iskama qayliyo marka waxaan weydiinayaa madaxweyne ku-xigeenka Saylici dadku markay cabashada idin soo jeediyaan waxay jecel yihiin inay madaxweynahooda arkaan oo sidoo kale loo soo hor fadhiisto sida adiga hadda su'aalo lagu weydiinayo oo loo weydiiyo markay dadku u yimaadaan su'aalahooda weydiiyaan oo si fiican ay maaragtay waxay doonayaan tabanayaan face to face madaxweynihii iyo adigaba la idin arko oo dadkii aqancisaan wixii aad kari kartaana maaragtay kana madaxweyne ku-xigeenkeeni Saylici sidoo kale aan isugu nimaadno mid baan idin sheegay idinka qudhiina Somaliland maalinta iyo tiin meel qabanayo dadkan oo dhan ma arkaan wallahi waayo inaga dhiig baynu leenahay spirit baynu ku jira wadan baynu leenahay qaran dhameyn meesha u joognaa hadayna Somaliland inagu sheegin yaa sheegaya Somaliland maalinta la qabanayo bilisan idin wada arko wala hadaynu qaban aad u maasantiin haddaba waqtiyadan dambe aynu ku jirna waxaad moodaa isbedelo badan inuu ku yimaado dhinaca suugaanta laakiin waxa aad iyo aad xiise gelin gaar ah leh nin da'yar oo magaciisa la Moogayere uu kaga dhawaajiyay kabanka sidii la yaqaanay ama dhagaha dadka habka ugu soo dhacayna ahayd mid dadka qaar ay dooneen inay taagni ku bilowdaan iyagoo markaa suul dhabaale aad moodo labada inay isku garaacayaan farta iyo anta laakiin waxay noqotay mid dadka loo digay oo leeyahay please dib u fadhiista heestana wanaag qurux badan ku daawada quruxda iyo maamuuska iyo habka uu tumayo stage-kiisana uu yahay runtii mid aad dadka u xiise geliyay waana kan Moogayere iyo heestiisa aan iraahdo si ka duwan hadana Cabdigaas runtii waa ninka caana stage-ka aanu joogno
walow aan odhan karaya waqti badan ma joogin statekan inkastuu ka soo guray gobolka Virginia laakiin Cabdigaas waa nin la sheekaysan karaya da kasta oo aad ku ilaa 5 jir ilaa 9 jir intaba waa nin ka qoslin karaya qof kasta oo luqad kasta ku hadlaya isagoo aqoonta shakhsinimadiisa waxa uu Ilaahay habad u siiyay ku hadlaya ayaa waxay tahay miduu to always to so dareenkiisa farxadda iyo foojignaanta wajigiisa iyo ismaalka iyo ilka cadayska iyo dhoolka qosolka uu wataa waa mid Ilaahay siiyay haddaba waxaan u malaynayaa haddii lagu fasaxi lahaa stageka habeen dhan uu hayn karaya isagoo oo gabayo qosol majaajilooyin kala duwan hal xidhaalayaal iyo intaba wadi kara oo ka sheekaynaya taariikhaha aynu soo marnay balse waxa uu yidhi caawa waqtigaa badan ma haysto laakiin waxaan jecelay inaan in yar ka sii daayo waana kan waa dayntii taqaana way taqaanaaye waxaan imaka soo baxay anigu waan ka horreeyey gabay hadday tahay iyo hadday geeraar tahay iyo hadday hees tahayba waxaan wadanka u soo maray intiin halka fadhidan u soo maray kuma jiraan filaya maxaa yeelay afiya dib ugu soo halkan ta joogana gabayada badan baati laakiin ba kuwii Soomaaliland mar bakadin wax yar mar ka jacsiinay waqtiga ugu yar bismillaahir rahmaanir sada gabayga wayadan ma marin sada raadisihe ma samaynin hasawaha iga sugayseene warwaatanka saahiday tan iyo saci karameedi xalun baasiqdi dhexe hurdada sidii lay tumay adduunyada ilaahay simayuu sidh walba abuuray ninba seerihii loo idmay buu samaa ku joogaaye war Somaliland baanu nahay saajiciin jira Somaliland baanu nahay saajiciin jiray waxaan nahay dasiirkoodu yahay soo jireen dhabahe waxaan nahay saboolnimo dadaan saatirkood badine waxaan nahay dad maal soobsadoo sayladay furane waxaan nahay dadaan loo sasabaan sabiga noociye waxaan nahay dad sudhii ku taal sulufti waagiye waxaan nahay dad saybi u galay ansalu ilaa weyn waxaan nahay dad saymi u galay ansalu ilaa weyne war Somaliland maalintay silic la weysay sayliciiba waa geesiyadii suudigow maray war waa kii sakaarada uu cunay solaygii kaymaaye war waa kii sifeeyey mar hore saaray cadowgii afartaasadiiyo wowga iyo sadaradiisii dhe ma sameeyey hasawaha iga sugayse war goortay sugeen inamada sanada u dhiibla waa gabay hore waa naxliya ma ka joojiyaa waxaa kaloo isaguna aad runtii stageka uga muuqday Ibrahim Carabi oo isagu bal fikradihii meesha ka hadlayay ama dadkii hadallada ugu soo talagalay mid ka duwan sheegay shakhsiyadiisana halkan ka cadeeyay waxaan filayaa dadkayga oo dhan baa wada jooga sacabkiisa looga garacayaad arkaysaa waxaan maanta markan la ii sheegaan idhi talo maxaad ka hadli doontaa ee dadka loo hortagi doontaa eed odhan doontaa dee halkeen ka warramaa siyaasad bay noqotay waxaan siyaasaddii uma baahnayn waxay noqotay horumarkaynu hadda Somaliland imika gaadhnay waxaan kolley madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan bay noo sheegi doonaa marka maxaad tidhaahdaabaan dee sida dadka loo hortagtaa waxaan idhi waxaad la hortagi kartaa kelmaddan la yidhaahdo thank you maxay tahay thank you Cabdiraxmaan fursadda noo siisay inaan caawa halkan isku nimaadnayno intaydaasoo ruuxi isku aragno thank you dadkii qabanqaabada sameeyey wanaagsanaaye howlgalay magaranaysa sacrifice-ka sameeyeen iyaguna aad bay u mahadsan yihiin thank you nabadgelyadaynu ku jirnay ee waddankeena aynu hadda ku haysanayno horumarka ku gaadhnay thank you mashaariicda iyo dariiqyada anu Hargeysa tagaa iyo Somaliland intiisa badan barboore intaba waan tagaa waxaan arkaa isbedel baan arkaa mar walba waddankeena aad ku arkayso especially waliba dawladda nimaka u dambeysay ay samaysay oo aad u wanaagsan nabadgelyo aad u wanaagsan xitaa aniga carruurtaydii maanta sanad bay u tahay inta Hargeysa joogay oo uga doorbiday inay xagga joogaan halkan ayna ku dhasheen
haddaba anoo sheekada waxba aanad igu sii badinaynin oo waqtigana aad inoogu yaryahay cabdiraxmaan mar labaad baan ku celinayaa thank you aad noogu timaada halkaan haddaba waxaanu soo gaadhnay goobtii la isugu yimid ujeedadii ugu weyneyd ee ahayd madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waa mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo aad moodaysay dadka badidiisu inay shakhsiyad gaara yaqaanaan kadib markii ay aad iyo aad uga ogaadeen ama youtube ka daawan jireen fiidiyoyadiisa kala duwan websaytyada kala socdeen internetkan idhaahdo iyo satellaydyada dhishka ee fiidiyoda laga daawado tviyada live-ka ah haddaba dad badan ayaa iyagu aad moodaysay inay aqoon gaara u leeyihiin sida ay ugu tootoosanayan ama diyaarka ugu yiin iyo dhoolla caddeynka ay samaynayaan marka uu stageka soo fuulay iyo sida qiimaha leh ay ugu soo dhoweeyeen iyagoo dadku aada uga mahad celinaya imaatika ugu yimid statekan of washington waa gobolka maraykan ah waxaanu ku bilaabay hadaladiisii sida tan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنيال يمروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب runtii caawa ilaahay baa horta mahad leh isuukeen keenay noloshan sharafta badan leh mahadda ilaahay kadib farxadda runtii caawa adiga fara badan runtii soo dhaweynta intan laga qiimaha leh ee jaaliyadda reer Seattle Washington ay ugu soo dhaweeyeen ilaa madaarkii aan ka soo degay saaka maanta door ka soo degay ilaa caawa oo akhyaarta sharafta badan rag iyo dumar bale runtii karaamaysan soo dhaweynta aad ka heer sarreysa iyo qaabilada quruxda badan la aad iyo aad baa idinka mahadcelin mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad balaha waad mahadsantihiin sida sharafta leh sida noo karaamaysan ilaahay nii karaameeyo soo dhaweynta walaalnimada leh ee wadaniyada leh ee qiimaha badan ee nagu soo dhaweysaan caawa halkani saan isku nimidna saa isku warano aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa kaloo mahad gaar u celinayaa intii soo qaban qaabisay runtii xafladda iyo intii ka howlgashayba runtii iyaguna aad bay u mahadsan yihiin taamaga ka gudbo wadankii saad sheegteen waxaan ka sokeeyaa imika wax 10 cisho ah waa lagu nabad qabay nabad gudbo wadankii ahaa warkuna waa saa imikaad sheegteenoo wadankii ugu horumarsan adduunyada joogtaan oo global village baa loo bixiyay noloshii adduunyada dhanba oo dadka war iskuma seegana waqtiga warku aad u qiimo badnaan jiray ee la oran jiray hebel baa maanta yimiday ee loo soo maartay war xiisu lahaan jiray maanta way laba joogo waa kelmadiina baxdaba waa taa bariiq lagu siinayo maanta waxa yaraabay website leeyahay maanta war iskuma geesan kara oo wanaaga dalka iyo wixii xuma dhibaato jirtay inta wad la socotaan haddana kula dil isku yimaado waa la isku warramay nabad guud baa wadanku ahaa roobkuna runtii wiiga aan ka soo baxay wadanka waa ku da'ay iyadoo runtii kala shukrushahay oo qaboobay oo runtii markii biyo dhaamis aad uga baqayay inta baan ka imaado ummadda reer Somaliland waxay maanta halku soo gaadhay runtii saad ugu sheegteen dadka isku raayiga isku waxa malaha waa mudacafkood baa leedo maskax iyo muruq iyo maal bay Soomaaliland laga soo bilaabo koob iskaashi markii xorriyadda la soo noqotay waxay isu geysay maskaxdeeda iyo muruqeeda iyo maalkeeda isu geysay taas keentay in maanta halka soo gaadho dad badan oo maanta inaga hooseeya oo leena Allah u naxariisto kuwii hore soo martay dalka ugu soo halgamay iyo kuwii nabadeynta ka soo shaqeeyba waxa la soo maray dariiq dheer sidaad sheegteen in walba inuu ku soo diray dalka oo nina cid lama fadhiyo waa la kala waxtar badanaya hore loo yiri rag wax yar tala mooyaane wax ma tala ma laha marka anagu ka dawlad ahaan waxaan ku dadaalay runtii markii aan xukunka nimidnay kow in dalka dhaqaalihiisa kor loo qaado oo waxaan yaraynu haysan resource-keenu haysano inaynu habayno iyadoo ogtihiin beesha caalamku ayna hagratay runtii oo maanta inagoo dhowr iyo 10 sanadood nabada aan haddana waxa layna geliyaa aad u yaryahay oo mar walba aad moodo ay beesha caalamku ay indhaheedu ku jeedaan kolba meesha dhibtu ku jirtay iyo rabshada iyo dagaalka dhibtu ka jiraan ay ku jeedaan haddana inagu waxaan ku soo gaadhnay
oo maanta institutionska dowladnimo kusoo dhismeen ee maanta ciidan ku leenahay hay'adii madaxa bannaana shaqaalihii civil service ku leenahay waxa weeyaan isku tashigeena wixiina yarba ku tashanay marka koowaad waxaan aan ku tashanay amaan ka bilownay in dhaqaalaha noocaas ay horta la ururiyo oo collectionkiisa la wanaajiyo revenue la kordhiyo saan la socoteen 2010kii miisaaniyadda la wareegay $50 milyan bahayd sanadka maantana oo daraskayga waxa weeyaan waa $180 milyan sanad walba waxa 30 milyan ilaa 40 milyan baa lagu soo darayay kolba la tijaabinayay iyadoo ogtihiin dee dal soo burburanahayna oo dadku maartay wax badan dee dowladnimada wali ay awood badan lahayn dadku kulli cashuurta meel kasoo jooga cashuur dadka ku adag tahay oo dee dadka la barayay waxaan alxamdulillah soo gaarnay inaan maartay halka maanta gaarsiino taasi waxay keentay markii dhaqaale la dhisay la xoojiyay ee collection fiican la sameeyay ee meesha aan ugu nimid example inay maalinta ka soo baxda 100 milyan oo Soomaaliyeed waxay imika aan gaarsiinay waa 500 milyan oo Soomaaliyeed hadayna customka kala bayd oo chatka ka soo qaad ugu badan Soomaaliya lagu cashuuro waxaan ugu nimid maalinta xilka la wareynay 100 milyan per day maanta waa 500 milyan yani waxa weeyaan lacagtaas way jirtay waxa weeyaan de collectionki waxa loo revenue si fiican loo marka loo habeyn waxa la gaarsiiyay halkii uu sareysay haddana wali waxaad moodaa wadankeena wali waxaan ku tiirsanahay wali customs revenue customs la wali ilaa maanta ku tiirsanahay waa wajis aan ahayn sax ahayno dalku wuxuu ku dhismaa waa in la revenue-ga waa sad wadanka joogtaan la socotaan waa cashuuraha bariga wali taa dadkeenu dee uma bislo milyaneerkii baa markuu 10 milyan macaasho wax ku oranaya waxba sanadka ma helna milyan baan helaba ku oranaya wali loo way baan u jirnaa laakiin waxaan taa qudheedan dadaal baan ku jirnaa waxaan tira koobnay 7 magaalo eedaa inta guri ee maartay cashuur laga qaadi karo for example taqaanina cashuurta bariga ama laga qaada waxa weeye waa guriga la kiraysto guriga la seexanay ma guriga la seexanay ardayda dawladda hoose baa lagu leeyahay guriga laga raba cashuurta dawladda dhexe waa guri kiraysan waxaan tira koobnay guryaha waxaan ugu nimidnay in maartay cashuurta barigu waxay ka ahayd boqolkiiba wax ka yar 10 waxaan riixnay waxaan gaarsiinay ilaa boqolkiiba 30 wali haddana lacagta wali ma dhawo lacagta dalka lagu dhisay waxa maanta wadanka qurux badan leh highway neemsa loo sayahay waa cashuuraha maanta dalka bixinayo tii waxay keentay markaa dhaqaale soo kordhayn dawladda awooday inay darajada ciidanka bixiso shaqaale lacagta loo laabo wadooyin wixii la dhis kale la dhiso hay maartay waxyaabo basic ah ee biyaha iyo maartay caafimaadka iyo waxbarashadii oo inta badan waxyaabaha 20 ka soo joognay hay'adaha caalamiga naga caawiyaan wax weeyaan waa inta basic service-ka waa biyaha caafimaadka iyo waxbarashada haddaad maqashaan hay'adda UNICEF iyo hay'adda UNDP iyo waxaas maqashaan inta badan wax naga caawiyaan waa Soomaaliland qiimo weyn buu uga fadhiyaa waa kuwa aan lagu soo moodo dalka soo dhisay maanta ummaddan ka soo gaarsiiyay haday tahay xaasaska iyo qoysaska danyarta iyo haday dhismaha dalka tahay iyo haday maalgelin tahayba runtii waxa xisbi macaarad iyo maxaafid baadana maalgelintiinu waa qaybta ugu weyn oo anaga haddaan macaaradkii waliba hayno 8 sano xisbigii ugu adkaa macaaradka hayn 2002 ilaa 2010kii 8 sano waxaan kusoo soconay qaybta ugu weyn iyo qurbijoog ku lahaa dhaqaalahaan in waxaan ugu dardaaraya intii naag joogtay qurbijooga iyo inta maqlaysaba inaad idinku tartanka ka jira iyo halkaasi cidii inta timaada waa ka xisbiga waa nin qaran ka xukuumadda ka waa nin qaran tartanka halkaas u yaalay idinku wax dhiskiino ha noqday wax dhistaan ha noqday wax duubiyaalna noqonin kana midaysnaataan sidii maartay milada iyo qarankii Soomaaliya ee higsan loo gaar lahaana inaad ka midaysnaataan baan ugu dardaaraya arinta xawaaladaha runtii kamaan yareysan xukuumad ahaan ilaa markii Ingiriisku bilaabay iyo imika tan Mareykan ka bilaabayba madaxweynaha Axmed Maxamed wuxuu soo qoray warqado soo qoray marka Ingiriis soo qoray halkan uu soo gaarsiiyay maalinta waxa la kulmay xildhibaanka la Keith Ellison reer Minneapolis oo ah marka wuxuu ka tirsan yahay guddiga financialka maartay Congress-ka Mareykanka
wuxuu ku jiraa dadka u halgamaya ama ka hadlaya in laga joojin guud ahaan geyga Soomaalida in laga joojinin xawaaladaha waanu sheegnay xitaa inagu warqadan soo qoran treasury-ga madaxweynuhu warqad toos u soo qoray treasury-ga Mareykanka waan ku jirnaa kama maqnin meel fiican oo inoo maraysaa warqadii xitaa madaxweynuhu soo qoray waanu soo forward gareynay xildhibaankaasi si isnoo maartay ugu hawlgalo warqad kale oo baahan yahay waan ka wada hadalnay waan soo gudbin doonaa insha Allah anagoo cidna saa hore anigu sheegay madaxweynuhu sheegay anna kala cararin xisbiyada tada kala cararin waqtiga suuragal ah doorasho wanaagsan oo xor iyo xalaal ah oo waxay naga xumaynin ila doorasho gal lama dhahdee bariga anagu macaarid kayn oo oran jirnay waqade anagu warta kororsiimada kooda kama hadalbe tii labaad tii saddexaad ka qeyli jirnay imika soo cad moodaa والله سعد مودين يردق دقيانو يدو سنة كان انت سي قيلين aan sharci ku joognaba marka ayaan wakiid taayno soo international committee soo dhaxgashay ninaad u qiimo badan farax macalin xildhibaanka ayaa noo yimid wuxuu yiri oryaanahan warnaga macaarad hayn buuri barigi Kenya kale waan ku degdegnay buuri tii aan ku degdegnay way dadkii waan ku dhimanay buuri waxba degdegnay doorasho fiican oo yaalni qaatay doorashada ku degdegtaan oo dibadda ku duntaan ha ku degdegnay buuri magaaleena maanta ummadda reer Soomaaliya oo doorasho diyaar baan nahay laakiin doorasho waxaan rabnaa aan dalku inaga burburin sababtoo ah laba doorasho aad u qiimo badan ay saaran yaamka saaran waa doorashadii madaxweynaha ku-xigeenka iyo doorashadii golaha baarlamaanka haddii marka aanan la helin kaad dad tirsan oo la yaqaano dee waynu isku dilanaayo reer baa ku shubtay iyo heel baa xisbiyo baa ku shubtay yaa iman doonta taasina in dalkii naga burburo dee midkeena diyaar uma aad iyo aad baad mahadsantiin mar labaad mar koowaad waan mahadnaqaynaa Seattle waxaan halka waxaan runtii culays ugu maaha oo in halka waxaan soo maray inaan dadkaygaan arko oo yani wax kala diyan iga faa'iido waayaan isku imaadka maanta isku timaadeen in badan kala maqnaydeen waxa laga yaabaa 4 sano 5 sano sarag in isku yimaadaan markay madaxdu timaado taa qudhida yaa dareensana iyo inaan ugu dhukaan arko oo dadka arko oo waxba culays iyo daal runtii ugu maaha sababtoo wax walba iga beerayaan marka dadkayga oo midaysan oo soo qurux badan imaado iyo daalka sayga baayaan aad iyo aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh dadkii da'da yaraa ee meesha isugu yimid waxa kamid ahayd Hibaaq Aadan Hibaaq sidaad u aragtaa af Soomaaliya nafama ku hadli kartaa It was very amazing. I really liked it. It was really nice seeing the vice president. That's the first time you ever see anybody from it was that position or any close to that. It was my first time. So what do you think? I think it was really amazing. I think you should come back. Thank you. What's your name? Liban Aadan Mahmoud. Okay, Liban, sida caawa u arkaysa xafladda? Way fiicnayd and I think I'll go back to Somalia. Soon, inshallah, hadii la hayraa. Hay waxba si ka bedelin miyaa? Yes, nothing has changed. That's very nice of you. MashaAllah, khair inshallah. aadan maxamuud ismaaciil ayaanu jaan soo helnay dadkuna aad ba ugu yaqaanaan aadan cadde waa dadkii state of Washington ama Seattle Washington furayaan idhaahdo 30 sano min ama 40 mise waan ka yaray aadan ka yaray intee baan sheegay bal number qabs 22 okay 22 baynu ku jirnaa aadan sidaan la socdo maanta airportka joogtay caawa halkan aad joogtay xafladda sidaad u aragtay iyo soo dhaweyntii madaxweyne ku-xigeenka iyo fikraddu inoo soo gudbiyay talooyinka iyo isugu jirtay hawlgalka intaba mahadsanid Mustafa runtii waa xaflad aad u fiican waa markii ugu horeysay xaflad noocan ka qayb galo intaan Seattle joogay jawigeeduna aad buu fiican yahay aniguna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo intana ummado isku timaada meel waa wax aad loogu farxo ma qiyaasi karo jawigeega bil xaqiiqo iyo farxadda ay saacawa dadka hadda halkan naga daawanaya ama Seattle Washington TV-gaan ka daari doono ama website-yada naga daawan doona Seattle isbedel intee leeg ayay ku keenay madaxweynaha imaatinkiisa ama isku toornabashaha dadka jamhuuriyadda Soomaaliland mid aad u weyn baan oran karaa sababtoo ah sidii ay u sheegeen dadkii meesha ka hadlay waxa isku yimid 3 xisbi oo xisbi qarameeda oo intuba iyagoo midaysan ka qayb galay
oo farxad iyo tamaashaad ka muujiyay meesha iyo kalsooni ay ku qabaan dowladooda marka waxaan u maleynayaa inay ahayd imaatin aad u mideeyay ummadii Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay waa runtii waa sida meesha ka muuqata waad arkaysaa xafladdu way dhamaatay dadku wali ma bixin wali waa la isku meereysanayaa dadkuna aad iyo aad ayuu hadaladii qiimaha iyo qaayaha badnaa ee madaxweyne ku xigeenka Mr. Saylici ay aad ugu diganayeen kana sii sheekeynayeen balse Ali ayaan isna jaan u saaray Ali Ibrahim Nuur Ali sidee bad xafladda caawa arkaysay si fiican baan xafladda si fiican bay u dhacday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhaweyno aad iyo aad si fiican bay u dhacday goorma kugu dambeysay wadankii waxa igu dambeysay 2013 ma xumid marka ma dhaw dad 30 sano ama meesha fadhi 20 sano anoo ka maqlaa 23 sano ayaa waxaan tagay 2013 aad baan ugu farxay si fiican oo u dhismay ku maadsantahay Okay walaal ma hasantahay Somaliland markii ugu horeysay imaaday madaxweynaha Somaliland ka socda special Otherland ka socda so aad u fiicneed u wanaagsaneed waana ku faraxsanahay sidoo si leegna noogu imaadaan madaxda Somaliland بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بانوجمه أيان ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda madaxweyne ku xigeenka Somaliland injineer Saylici si uu camaan u soo dhaweynay reer Seattle aad buu ugu faraxsan yihiin inuu noo yimaado oo na soo arko qurbaha Somaliland dadka qurbaha jooga marka welcome maan leenahay caawa looma kala maqnayn mucaarad iyo muxaafid all Somaliland halkan ay wada joogeen marka waxaan leenahay welcome mar iyo 2 iyo 3 ba ku soo dhawow Somaliland ku soo dhawow Seattle Somaliland ku soo dhawow goorma wadankii kugu dambeysay mar waxa igu dambeysay anoo ka soo maqan muddo 8 sano ah waxaan tagay 2013 waxa isbedel aad u ballaaran baa ka muuqday magaaladii Booramo isbedeshay caasimadii Hargeysa isbedeshay airportkii ma sha Allah aad buu fiicnaa goorma kugu dambeysay adigana anigana waxa igu dambeysay almost 9 years and 2012 kii aan ku laabtay ma sha Allah Booramo magaalo aad loogu farxo oo loogu soo dhawaaday noqotay waxaan rabaa insha Allah naga siyaar haduu Ilaahay iraado oo caafimaadka noo daayo inaan wadankayga mar labaad ku laabto aniga ku faraxsan abaad barkhad weeyaan on chance soo helay bal isagana inuu xogaa ila sidii ugu diyaar garoobay xafladan iyo sidii ay u dhacday iyo sidii ay u qabatay bal fikrad naga sii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتا جزاكم الله خير ولله الحمد والشكر سفاع بين ugu dhacday ilaahay mahad kowaad ilaahay baa iskale aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne ku xigeenkeena ama madaxweynaheena iminka isaga madaxweyne noo halkan Seattle inaan aad u soo dhaweyno sharaf bayna noo tahay community-ga reer Somaliland aad bay u mahadsan yihiin hadaba xafladii ka dhacday magaalada Seattle Washington waxay ahayd runtii mid aad iyo aad u raaxo gelisay dadkii isugu yimid dareenkoodana sare u kicisay haddaba intaas ay ku soo gabagabowday waa anigoo Mustafa Kayd Xaaji Cabdi iyo Cabdi Kariin oo ah producer-ka showgan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh